gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee laantiisa Norway oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xaruntiisa magaalada Oslo ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah waxaana hadaladiisii ka mid ahaa anigoo ah Maxamed Cabdi Ismaaciil ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee laanta Norway waxaan markii ugu horeysa halkan ka salaamayaa markii ugu horeysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo gudoomiyaha xisbiga mudane Muuse Bixi Cabdi waxaan kala salaamayaa dhamaanba golayaasha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland golaha baarlamaanka iyo golaha guurtidaba markii ugu horeysa saxaafadda reer Soomaaliland dhalinyarada saxaafadda ee journaliska ama wargeysyada u shaqeeya ama website-ada leh waxaan jeclaan lahaa kulley marka aan eego dadka Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadla shanta geeyi ee Soomaalidu kala degan inaan marka ugu horeysa horta hambalyo u diro ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala jooga dacalada dalka khaasatan kuwa sugaya amniga meelaha xasaasiga aad iyo aad ayaan hambalyo salaan ugu diray